السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن إذا لهانتين بهدا وضيال ميل كاستا نجا داونيسان كنا سود وده برنامج كني أرمها بالشدة وبرنامج تتبادل وتباد كاستا كبحة تلفزيون كعالمي سومالي channel هذا وده وضيال تباد كان أيينو كجهل نحن كجهل اللي تباد كي هو برنامج كأرمها بالشدة نبضة إسلا تباد كان نوحنا كسر نقولنا نبضة sida aynu la wada soconno nabaddu waa shay qaali ah nabad la-aan waa nolol la-aan haddaba toddobaadkan waxaa marti noogu ah barnaamijka arrimaha bulshada injineer cabdilaahi cabdiqaadir faatixo oo ka mid ahaa musharaxiintii isu sharaxay madaxnimada dowlad goboleedka puntland 2009 waana siyaasi soomaaliyeed oo da-yar jecel horumarka bulshada haddaba injineer faatixo horey wuxuu uga soo shaqeeyey meelo fara badan isagoo inta badan u ololeeya arrimaha bulshada iyo sidii Soomaaliya nabad loogu heli lahaa toddobaadkan ayaynu kaga hadli doonaa barnaamijka nabadda injineer marka hore ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee Somali Channel iyo waliba barnaamijka arrimaha bulshada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad iyo aad ayaan uga mahadinayaa soo dhaweynta iyo qaabilaada Somali Channel محمود وعمي سيجار يا أنا كو سلام يا سلام كديب وحنا مالين يا برنامج كذا كبحة سومالي channel برنامج آد وقيمة بدن وحكو أول أرمها بالشدة بالشدة إنه واحد باهن تاعي واحد برش واحد باهن تاعي أقوم واحد باهن تاعي نلول وحنا لو جاري كرا أقوم ومد إننا ميديا اللغة شيء وحسن taas ayaan waxaan in badan uga baranay Somali Channel barnaamijkan wuxuu kamid yahay barnaamijyadii hore u baxay ku lamida hadii aan u soo dhaadhaco arrimaha bulshada barnaamijka maanta oo nabad ah kolla waxaan qiyaasayaa ummadeenu aad ayay u taqaanaa nabad waxa ay tahay horta marka ugu horeysa waxaan ku bilaabanaynaa magaca Ilaahay waxaan mahad u celinaynaa Ilaahay waxaan ku salinaynaa nabiga sallallahu alayhi wasallam inta kadib nabadu waa salaam islaamkeena waa nabad Soomaalidu markay is salaamayso waxay tiraahdaa nabad ma sheegtay ma nabad gashay nabad tagtay waa wax Soomaalida kaliya aan ku ahayn ummadda caalamka idil ku kooban laakiin nabad in la yiraahdo waxa ka haboon in la fiiriyo nabadda maxaa ka soo horjeeda nabadda waxaa ka soo horjeeda colaad waxaa ka soo horjeeda burbur waxaa ka soo horjeeda abaar waxaa ka soo horjeeda hoog waxaa ka soo horjeeda dhaawac waxaa ka soo horjeeda halaag ummaddu midda ay experience ku qaadato oo ay taqaano oo ay dareemi karto waa taas taa marka waxa bedeli kara waa nabad macnaha maanta wiilka jooga Soomaaliya in badan waxa uu dareemi karaa arrimaha burburka iyo colaadda iyo dhibaatada iyo qoriga dhacay iyo madfaca iyo hebel baa dhintay wararkeena oo idil marka la soo galo hadii maanta la sheego roobab iyo barwaaqo iyo barnaamijyo wax ku oola dadku ma daneynayaan waxa ay aad u daneynayaan halaag iyo hoog iyo dhibaato marka la sheego waxa dhacay war ma hayo kulay war ma hayo micnaheedu waxa way nabad baa la sheegay wanaag baa la sheegay barwaaqo la sheegay laakiin waxa ummaddu Soomaalidu ay badanaaba buunbuunaysa wada waa colaadda waa dhibka waa rafaadka waa marka waxaan anigoon ahayn macnaha nin maadadaas ku takhasusay aan rabaa inaan dhaho ummadeenu waxay u baahan tahay laga bilaabo bayska inay fahanto nabaddu waxa ay tahay in la daraaseeyo nabaddu waxa ay tahay iyo sidee nabad loo gaari karaa waayahay aad ma mahadsan tahay faadixo marka hore hadii ku bilowno aasaaska nabadda waa maxay aasaaska nabadda aasaaska nabaddu waxaan u malaynayaa waxaan dhahnaa ama aan sheeganaa inaan nahay ummad islaama ummad muslima oo 100% muslima maanta waa laga heli karaa ummado dad diimo kale laakiin dadku dhamaantood waxay hubaan inay dhimanayaan hadday dhintaanna waxay hubaan in la soo saarayo waxayna doonayaan inay janno aadaan marka wax yar haddaan gadaal u fiirino waxaa nala leeyahay qofkiin janno geli maayo qofkiin ma rumayn oo ma aaminin ilaah iyo rasuul iyo waxa diintu sheegayso in uu ma rumayn rumayntii marka maxaa lagu xiray ilaa iska jeclaataan
nabigu wuxuu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam wadada aan isku ku heli karno inaan isjeclaano. ma idin tusaa shay waa xadiid saxiixa, ma idin tusaa shay haddaad samaysaan aad isjeclaanaysaan, ifshu salaama baynakum, war nabadda iyo salaanta iyo marxabaynta aan af ahayn ee qalbi iyo ruux isla socdaa taa faafiya. taa waxaa waaye waa aasaaska in marka ugu horeysa dhaqanka nabadda la bedelo. aasaaska nabadduna maanta waxay tahay waa wax la barto, ma aha waa qof kasta waa ama colaad buu wadaa ama nabad buu wadaa. marka uu dhaqaaqo oo magaalada usoo dhaqaaqo ama mucaamil uu sameeyo, hadduu khuluq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan iyo dabci wanaagsan iyo dadnimo wanaagsan ku sameeyo, waxa uu qaadayaa nabad. haddii waxa ugu yar oo qofku maalintii la kulmo waa inuu gaarigiisa saxmad la galo, hadduu hoon iyo magaciisa ka kale ayuu hasal gelinayaa, kabacdi qofkaas dhibka la geliyey dhib buu ku jawaabaya. hadduusan samayn inuu asagu dulqaad sameeyo oo uusan ahayn qof nabadda qaada. marka waa in cultureka nabadda iyo dhaqanka nabadda iyo qaabka nabadda laga bilaaba aasaaska guriga, iyada oo lagu talagelayo in ilmaha hadal macaan, qalbi macaan, war waxaa sameeyo quriyo iyadoo la oran lagu bilaabo wanaagga iyo waxa wanaagsan in la tuso. agekaas marka laga bilaabo ilaa dadka waaweyn qofba qofka kale iyadoo sharciga tan ah la raacayo oo ishii salaama la sameynayo oo salaantana la baray dadka lagu salaamayo oo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. assalaamu calaykum taasi waxay xambaarsan tahay inaad qofkii maalkiisa iyo hantidiisa iyo cardigiisa iyo sharaftiisa iyo dhiiggiisa iyo karaamadiisa iyo wax walba aad u nabadgelisid. taa haddii la helo waxaa la helay aasaaskii nabadda, waxaa laga baxay aasaaskii colaadda. waana basiga ma ka hadlayno ummadeenu waa burburtay inaan dhahno sidee loo soo celiyaa dowladnimo, sidee loo soo celiyaa horumar, sidee loo soo celiyaa aasaas. laakiin waxaan ka hadlaynaa war maxaa bulshadu ka maqan. bulshada waxaa ka maqan inaysan ahayn bulsho qaada nabadda. qofka nabadda qaado oo dadka u dabacsan oo layinka u ah oo tartiibta u socda waxaa loogu magacaabaa qof hambala. qofkaas marka taas ayaa waxay tahay aasaaska nabadda. waan gartay aad ba mahadsan tahay injineer faatixo. injineer faatixo haddaan su-aasha kale dib ugu laabano soomaaliya inu laabano nabadda soomaaliya, sideeday soomaaliya nabad ku heli kartaa? waxay soomaaliya nabad ku heli kartaa haddaan waxa waaye dhakhtarku hadduusan marka hore diagnosis samayn oo qofka cudurka haya uusan baarin dawadiisa ma heli karo. soomaaliya waxay u burburtay si kasta, waxay ka burburtay dhaqankii, waxay ka burburtay diintii, waxay ka burburtay dadnimadii, waxay ka burburtay aqoontii. intaa burburkaa gaaray waxuu ku yimid marka hore aasaas u ahaa oo arrintaa weheliya in aqoontii iyo hantidii iyo waxgaradkii iyo wax walba hal meel oo ubaca aan isugu keennay. meesha aan isugu keennay waa caasimadeeni muqdisho. waxay ahayd ubuc wax walba oo ummadda maaragtay dan u ah. waxa ugu yar oo ah in gaariga qofku laysan ku wato, inuu baasaboor qaato, inuu jaamacad galo, inuu shaqo wanaagsan helo, waxa uu usoo doonanayay waa muqdisho, waa kabitaalkii, waa caasimadii. halkaa marka waxaa noqonay wax walba meeshaas inaan ku buuxino. ayada waxa waaye sidii buufin la buuxiyey, way buuxsantay way buuxsantay way buuxsantay way qaraxday, burbur baa ku dhacay. waxaa noqonay madaxa laga dilaa, meel dadka maaragtay madaxu ka dhintay. inta kale marka way rafanaysaa, ama ha la yidhahdo nabad bay joogaan oo maamulee ka jira, ama ha la yidhahdo, laakiin madaxii mar hadduu dhintay waxa weeye dhibaata ayaa ka jirta. tan ama aasaaska siyaasadda ama aragtida siyaasadda soo socota ee nabadda guud ee soomaaliya lagu raadinayo haddii nabad laga rabo waxay tahay meesha col kugu galo waa laga tagaa, waa laga diga rogtaa. in ummadaha kaleeto adduunka idilna way soo mareen, way ka diga rogteen meeshii ay kabitaalkii ama dhib uu ka gaaray ama dhibaata ay kaga timid. markay heshiiyaan ama ay heshiis isugu yimaadaan meel cusub oo ka duwan ayay sameeyaan. marka in soomaalidu ay culture u yeelato ama dhaqan u yeelato ama fahan ay u yeelato in aysan ahayn burbur iyo dhibaato iyo magaciisa in lagu jiro. qofka waxa uu kacbada waxa ugu dhibaato badnaa oo kacbada lu yiri qof muslima dhimashadii ayaa ka daran in kacbada la dumiyo. ka waran in aan dhahno
muqdisho ayaa capital noo ah oo ay billions qof nooga dhimato waxaa ka roon inaan horumar iyo baraare ku gaarno meel kale oo nabadda ay aasaasna u noqoto in marka ugu horeysa la sameeyo contract social contract waxa la yidhahdo micnaha in bulshadu ay wax isku ogtahay amni yar waxay ku wada joogaan ay marka hore samaystaan oo real ah in marka ay samaystaan ay meel cusub buqcad kasta oo amni ah oo aan dhibaatadu gaarin inay sameeyaan in maamulkii hore sida uu ahaa concentrate aan laga dhigin meel wax walba hal meel la isugu geynay daafaha caalamka sida caalamku maanta ku shaqeeyo loo shaqeeyo daafaha loo kala gudbiyo oo awooddu ay noqoto haddii aad waxbarasho rabtid halkaasaa warqadihii ka dhamaysanaysaa haddii aad rabtid caafimaad halkaasaad aadaysaa haddii aad rabtid inaad baasaboor qaadatid magaalada kale warqadihii aaday oo wax yar cabitaalka kusoo haro laakiin ay awooduhu haddii uu problem kale dhaco bini aadamku waa taduur maalin walba meel bay maraysaa haddii problem kala dhaco in يعني يلا هل ميل la isugu geyn laakiin taa aan ku talinayo waxa waaye si meesha dhibaatada kugu dhacdo waa laga digrogtaa in laga digrogto waayahay aad buu mahadsantahay injineer faataxo iyana dadweynaha na daawanaya oo iyaguna khadka telefoonka nagala xiriiri doona iyaguna bal aan fiirino khadka ugu horeeya ee telefoonka inagoo dib ugu soo laaban doonaa injineer faataxo waxaad sheegtay in maaragtay laga digrogto ama caasimadda soomaaliya oo la qaybiyo aan u laabano khadka telefoonka marka hore bisoo salaam hallo salaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal magacaaga meesha ka soo marka hore محمد بالي هلا مكسوعين. maxamed holan walaal kusoo dhawow barnaamijka arrimaha bulshada waxaa caawa marti nooga ah injineer faataxo oo runtii aad daawanayso waxaanu ka hadlaynaa nabadda iyo amniga soomaaliya markaa kusoo dhawow ني هرتا وفي عنتها السؤال دور سؤالات باويديسيو هل السؤال بوسي في عنو جواب أنا أركتين صح كوبه سؤال شاسنا وحي أهيد إنتان معناها مارتي حالك اللي جاري وحال الراديات نبكا صح إلى نبكا اللي أقعدوا حل مدى وين كارو ما فهمت صح الصومالي هو روحي كوما ما هي جرين ميل الدوشي لما ضيو صح meeshu hadday hurgunto oo mirali gasho dusha lagama daaweeyo ilaa dee maasha laga soo saaro waa gad marka haddana dhibaatooyinka soomaaliya haysata waxaa dadku inta badan raadiyaan xal lama raadiyo waa maxay dhibku waa in la raadiyo hurgumada waxaa leedahay ilaa la helo boogta la helo daawada la heli maayo haa markii cudurka la ogaado markii cilada la ogaado cudurka la daaweeya masalan sax ilaa iyo hadda soomaaliya qof ogaaday dhibka soomaaliga rasmiga meeshu ka jiro ma jiro sababtoo ah cid baartayba ma jirtoba shirar baa la galaa waa la isugu yimaadaa shirkiina waa lagu fashilmaa mafahat oo shirarka naftooda inaan daacad laga ahayn baa laga yaabaa midda kale anu waxaan aaminsanahay soomaalida aqoon darro ma hayse laba shay baa haystaa anugu aniga aragtidayda waxaa haystaa midda koobaad soomaalidu wadani ma ah midda kale caqligii baa si ka noqday caqliguna waa shayga cilmiga ilaaliya ma fahanti ilaahay qur-aanka wuxuu noogu sheegay isuu markuu nooga warramayay reer bani israa'iil qayb ka mida oo cilmi la siiyey oo cilmigoodii garan kari waayey dadkiina wanaag bay amrayaan iyagiina naftoodii macnaha maarti waa ilaaween ata'maruuna annaasa bilberi watansawna anfusakum wa antum tadluuna kitaab afalaa tacqiluun bu ilaahay waayo walaal adigoo soo koobaya dad badan ayaguna khadka kusoo jira marka waxaan ka wadaa soomaalida niyo waxaa kuma wadaniyadna maleh caqligiina waxbaa ka siiya kolba aniga aragtidayda marka waxaa loo baahanya dad caqli leh in la raadiyo gaxle oo cilmi keliya aan la raadin ma fahan dad badan oo cilmi leh marka halkaan soo fadhiistaan wuxuu ku hadlayaa aan garanayn baad arkaysaa oo professor lagu tilmaamo aad baa umahadsan tahay maxamedow ra'yi fiican runtii weeye injineer wuxuu sheegay ninkan inayna soomaalidu wadani ahayn iyo in marka hore bal cudurka marka la helo ayaa daawadiisa la helaaya cudurka soomaaliya in la raadiyo marka xagee baa sideedahay inuu cudurkaas ku jiro cudurku waa iska qoto dheer yahay ummadda dhibaatooyin badan ayay soo martay si kastaba ha ahaatee marxalad bay hadda maraysaa marxaladda ay maraysaa ayaa waxay u baahan tahay wax ka dhihid iyo wax ka siid haddii la dib loo raadraaco waxa weeye oo taariikhda iyo historyga iyo magaciisa gadaal loo fiiriyo micno badan uma keenayso maanta micnaha oo dadka inta la isaga dhiibo ka dhintaa dadku
dhib kastoo ay soo maraan inay inta wada fadhiistaan xal raadiyaan ayaa loo baahan yahay waxay xal ka raadinayaan maanta qof kasta oo soomaaliya wuxuu leeyahay nabad baan rabaa laakiin waxaa jirta waxa la yidhahdo in qof kasta uu gadaal u adkaysanayo oo uu gadaashaas u adkaysanayo ay keentay baqdin uu ka baqdo kan kale inuu ka sadbarsado cadaalad darro waayo ma aha caqli xume waxaa ka jirta cadaalad darro cadaalad darradaas waxa weeye qof kasta inuu la yimaado in micnaha markii waad aragtay markaan hadda warlordska la isu geenayay waxay ahayd reer walba warankaaga keen si waramada inta la isugu geeyo ay noqdaan bridge dhismo ay u noqdaan looga gudbi karo meesha waramada la isaga geynayo waxay ahayd in la isu geeyo xariir oo qof qolo walba ay soo hormariso kan ugu wanaagsan meesha kan warlordka u ah oo dagaalyahanka oo dagaalka gelaya oo colaada la aadayo taas ayay fahmeen taa ayay ku socdeen waddadaas lagumana guulaysan karo because qof dagaal u taagani dagaal ayuu rabaa waxaa waddada keliya lagu guulaysan karo waxa weeye waddada dadka wanaagsan tan kaleeta waxaa habac ku dhacay maanta waxaa la yihahdaa siyaasadda ha gelin qof kasta oo caqli leh qof kasta oo raba ummadda inuu wax u qabto waxaa la yihahdaa war may maanta maalintii maaha maanta maalintii looga dari jiray maaha maanta ayay tahay maalinta loo baahay arrinta uu ka hadlayo oo hogaamiye iyo hoggaan baa loo baahay maanta ayaa ninka caqliga leh inuu taliyo loo baahan yahay maanta ayaa la rabaa inuu godka ay soo ummadda ku jirto inuu ka saaro qof kasta oo wax yar garanay midda kaleeto dadka warlordska ama dadka dagaalka u taagan way isdoortaan laakiin dadka aqoonta iyo garaadka iyo hoggaanka iyo waxgaradka iyo wax lagu tuhmiyey nin waliba wuxuu leeyahay maanta maalinteedii maaha oo maalintaadu goorma imaanaysa markii la halaago taas ayaan aniga ii muuqata wadaniyad xuma way jirtaa wadaniyadda waa la bartaa nabadda waa la bartaa arrimaha waxa weeye annagu waxaan isaga soconnay bulsho ah 20 jir mudug jooga xilkiisu ma qabtan oo qofku inuu xoog iyo xeel kale uusan wax ku raadinayo dagaal uu wax ku raadiyo resourciga oo yar dartideed micnaha waxa ummaddu haysato oo yar dartideed baana keenaysay taa in laga baxo in wax la qaybsan karo in la fahmo in la isu tanaasulo in la fahmo inay ummadda bulshadu ay wax isku ogaato muhiimaddu waxa waaye bulshadu waa inay leedahay waxa isku ogaato tusaale yar haddaan ka soo qaado faransiiska markuu dagaalka ka dhacay laba ayay ahayd dagaalkii labaad qaar jarmalkay la jireen qaarna waxa waaye waa ka soo horjeedeen marka ay heshiiyeen waxay yidhahdeen mayaan xisaabtanaa oo haddaan xisaabtanno waxa weeye maxkamada iyo magaciisa iyo kharash iyo dhibaato iyo rafaad iyo waddo dheer baan maraynaa aanu iscafino halkaa lagu xiro case mis bay noqotay dadkii hore uga dhaqaaqeen ummaddu waxa weeye marka waxaa leedahay soomaalidu iyana dib u fiirinaya waxa weeye laakiin waxay isku ogaad waxaan kaloo tusaale yar oo waaqic ah oo local ka soo qaadanaya magaalada gaalkacyo dhibaatooyinka meelo uu ka dhacay ka mid ahay warlordska ama ha la yidhaahdo ama waxgaradkooda ha la yidhaahdo wax yar bay isku ogaadeen waxaa la yihahdaa heshiis baa dhacay waana lagu wada noolyahay waxay noqotay in dib la isugu soo laabto heshiis yar oo qodobadiisa in akrisay ay yar tahay laakiin waa la heshiiyey ummadda dareentay ma la isweydiiyo maxaa dhacay ma laga xisaabtamo maxaa dhacay waxaa la yidhi waa lagu wada noolaado magaalada taas oo kale ayaa loo baahanya ummaddu inay contract saxiixato oo odayaashadu inta fadhiistaan oo caqiladooda oo waxgaradadka u fadhiisto oo meel ay isugu yimaadaan ay yidhahdeen waxaan isku hogaanay nabad tan ugu horeysana meeshii dhibaatadu ka dhacday haddaan laga diga rogon dhibaatadu way ka jiraysaa waayahay aad baa umahadsan tahay doctor faatax oo khadka telefoonka aynu eegno mar kale hallo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa la yidhahdaa cabdillaahi oo waxaan kasoo hadlayaa kaadheef cabdillaahi kaadhef kusoo dhawo cabdillaahi barnaamijka arrimaha bulshada maanta waxaa marti noo ah injineer faataxo waxaanu ka hadlaynaa nabadda marka kusoo dhawow walaal aad iyo aad baan u salaamaya injineerka adigana aad iyo aad ayaan ku salaamayaa walaal horta marka la yidhaahay dhammaanteenba nabad hayna siiyo waddankeennii hooyo dhammaanteenba ilahay nabad hayna oga dhigo waxaynu ku farxnana ilaahay sanadka cusub hayna siiyo hallo walaal wad waa ku maqlaynaa walaal kolley waxayn raadinaynaa waa nabad marka waxayd moodaa inaynu dhammaanteen wada garanayna nabadii hase haatee inaynu isku qaldayno wax la yidhaha dawladnimo iyo wax la yidhaha nabad dawladnimo ayaynu had iyo jeer raadinaa si aynaan weli raadinba horta bal nabadii markay dadku nabad helaan ayaa laga hadli karaa war sidaynu wax u dhisanaa haddaba si in dawlad heshiis aynu ku nahay u helnaa haddaynaan laakiin kaba hadal horta sidaynu isugu nimaadnaa iyo maxaynu isku haynaa iyo maxaa inaga dhexeeya horta iyo maxaynu isku dillayba dee dawladuna handhisana dee dawladuna uma baahnina nabad baynu u baahanay maogta marka horta bal nabad sidaynu u helnaa
kadibna waxaynu heshiis ku nay baynu dee markaa raadin doonaa bal talo dawlad ma ku heshiin karnaa ma isugu iman karnaa wax ma qaybsan karaynaa dee su-aalaha markaa la isweydiin doonaa laakiin haddaynu ka bilowno un dawlad oo la yidhaha dawlad un baa la dhisaya dawladdan aana cid baanay u baahnaynba cid u baahan ba aan la garanaynin deetana dee dawladdii meel un baa la geynay iyaduna ciidan un bay kaxaysano dee madfucu u soconuun waayahay walaal marka aniga waxay la tahay marka hore in laga hadlo horta nabad seenu helaa midda labaad qolada miidiyahana waxaa la yagana nabadda ka qayb qaato dee idinkuna xagga qabyaalada iyo waxaa waa inaad dee aad iyo aad ba umahadsantahay jeer waa inaad isilaalisaan oo dee marka siyada laydinka daawan waa inaan idinka dhadhamin aad ba umahadsantahay cabdillaahi taladeeda wanaagsan aad ba umahadsantahay cabdillaahi oo nagala soo hadlay magaalada Cardiff ayuu kaasoo ahaa aynu eegno haddaba khadka xiga ee telefoonka hallo salaamu calaykum عليك السلام بوعد walaal magacaaga meesha kasoo hadlayso على هذا عبد أحمد حاجي وكسر الله يا تولد ودو وصاص عرايو ورايو waayahay cabdi kusoo dhow barnaamijkan arrimaha bulshada maanta waxaa noo martay injineer Faatixo waxaanu kaga hadlaynay nabadda marka kusoo dhow aad baad u mahadsantahay boocaane adiga injineerka wada salaam 114 barnaamijka aad wadaan oo barnaamij loo baahan yahay Soomaalida maanta waxay u baahan in laga hadlo nabadda walaal adoo mahadsan dhagta nagala soco telefishinka iska gaabay miskiin maxaad ku taraysaa maaragtay wax fikrada sidee waragta adigu sidee Soomaaliya nabad looga dhalin karaa bal kusoo dhow fikradaada qabto waa maxay adiga waxa looga dhalin karaa hal way kaliya halka way waxa way qaabka al-shabaab u socoto kale hadaan loo socon wax kanu waxba ka suurtoobi maayo sida al-shabaab hadaan qacmaha iyo lugaha iyo dagaal iska goyn Soomaali ma leh waa mara baqayso ilaa qaarka dambe la jaro mooy wax kale ku hagaagi mayso marka al-shabaab hala iska taageero aad u mahadsantahay Cabdi Axmed Xaaji aan fiirino haddaba khadka xiga ee telefoonka hallo salaamu calaykum hallo salaamu calaykum walaal magacaaga meesha kasoo hadlayso walaal adoo mahadsan telefoonka nagala soco walaal dhagta nagala soco aad baan injineer waa maqlaysa Cabdi Axmed Xaaji hallo salaamu calaykum assalaamu calaykum walaal magacaaga meesha kasoo hadlayso walaal magacayga waxaa la yidhahdaa Jacfar Cabdullaahi waxaan joogaa dalka Masar magaalada 6 October City adiga iyo injineer Faatixo waan salaam walaalayaal laakiin waxaan rabaa inaan ku darsado fikirkayga barnaamijka arrimaha bulshada walaal kusoo dhawaaya waxaan leeyahay waxa ummad kasta hogaamiya dhalinyaradeeda iyo mustaqbalka ummadda wax ummad kasta waxa weeye dhalinyarada u soo koraysa wax u baranaysa ma garatay hadda waxa dalka qaribaya oo dalka dhibaato u geysta maalin kasta ama hogaamiye kooxeed iyo dadka jiilkii horeeyay way ma garatay marka waxaan qabaa fikirkayga wiil kastoo Soomaali ah oo teenager ama arday kastoo wax baranaya ha ku fakaro waxaan uu baranayo inuu dalka u laaban doono kullu shay jecel asdi qof kasta u laaban doona meeshuu ka yimid ma garat marka dhalinyaro hadda aniga arday baan ahay jaamacada dhigtaa sanadkan ugu dambeeya waxaan baranay waxaan u barnaa dalkayga Soomaaliya uma barnaa inaan bari aan cunto aan ku shaqeysto inaan Yurub ku aado inaan maaragtay caruurtii ku siistamay waxaan u barnaa inaan bari wadankii hogaamiyo waa karta aad ba waan karta marka aad ba mahadsan tahay Jacfar Cabdullaahi fikradaada fikrad wanaagsan weeye Faatixo ninka wani dhalinyaro ka soo hadlay magaalada Qaahiro Jacfar Cabdullaahi wuxuu yiri dhalinyaradu waa inay ka qayb qaataan iyaguna maaragtay nabadda iyo inay wadanka hogaamiyaan adiguna dib waxa tahay nin dhalinyaro ah runtii oo siyaasi ah marka arinta maxaa uga jawaab lahayd ano asaga waxaan ka soo hormay horta waxa waaye laba qof Cardiff aad baan u salaamayaa Cabdullaahi oo Cardiff naga soo wacay Cabdullaahi wuxuu tibaaxay in dawladnimadu ay ka horeyso nabad waxaan oo sheegay marka ugu horeysa waa in laga wada hadlaa sidee nabad lagu heli karaa oo arrin xaqiiqa aan heshiino waanu wax qabasano haddii aan la heshiinin dawladnimo ma dhisanayso macnaha idibada dawladnimada ayaa waxay ka mid tahay inay heshiis keento ma kor baa laga bilaabaa mise hoos baa laga bilaabaa waa la isku qaban karaa laakiin nabaddu waa aasaaska haddaan nabadi jirin wax qabsoomi kara ma leh sidee nabadda lagu heli karaa hadda waxaan qiyaasaynaa dhulkeena in badan baa waxa waaye colaadi aysan ka jirin marka la leeyahay Puntland cayaariq 15
gobol baa ku wada cayaarto kubad baa la daawanaya micnaheedu waxa waaye halkaas nabad baa ka muuqata kubad lama daawan karo gabdha ma loo cayaari karo aroos lama samayn karo nabadaa leh alxamdulilah ilahay waa dhul ka mid a dhulkeena somaliland sidoo kaleeto waa hargeysa maanta haddii soomaali ay isugu tagto ma la oran karo meel dhibaata ka jirta wey waxay dhibaatada ku kooban tahay waa intii madaxa ahayd oo maskaxda ahayd oo wadanku haddii la yahad xataa dhaqaalaha wadanka intiisa badan ay ku jirto oo ku filayd soomaaliya laakiin dhibaatadii baa ku jirta waxaa habboon inay meelaha nabadda ahi ay gogol u fidiyaan dhulkeenna aan isugu nimaadno waxgaradkeenna aysan warlorku hogaamin waa in waxgaradka iyo aqoon-yahanka iyo dumarka iyo civil society-gu ay ka qayb galaan arrimaha nabadda nabaddana culture waa inaan ka dhiganaa oo dadka aasaaska u ah oo odayaasha ahi waa in ay saldhig u noqdaan waa inay ilmahooda baraan waa in qof kasta xanqadda iyo iska dhaafa waa inuu ogaadaa god yar in la isgelinayo qof walba jannuu rabaa jannada siduu ku aadi lahaa ma aha inuu qori qaato ma aha inuu dagaal galo ma aha waa inuu nabadda ka shaqeeya taa waxa weye waa cabdullaahi cabdi axmed oo ceelaayo kasoo hadlay aad baan u salaamayaa wuxuu haystaa caqiidada ah soomaali lama xukumi karo in la garaaco oo la dilo oo gacan laga gooyo oo madax lagu dhirto maya cultureka inaan bedelno weye culturekaas waa inaan bedelnaa dhaqankaa waa inaan bedelnaa waa in dhaqankaas adduunka maanta ka jira adduunku waagu saas ku socon jiray adduunku idil baa waxay ku talin jiray nin xoog leh kan xoog laha kan kala xoogi jiray laakiin waxaa la fahmay in dadku isu tanaasul wada garad wax kala dambeyn xeer iyo sharci ay degsadaan contract iyo waxay isku og yihiin oo ay wada qaateen ay ku wada dhaqmi karaan taa ayaana aasaasa dhalinyarada sida uu sheegay jacfar waxa weeye waana ku bogaadinayaa in dhalinyaraha wax baranayo oo lasti sanadkii ugu dambeeyay jooga waxaan leeyahay ilaahay kula garab galo waxaa baranaysidna allah ka dhigo mid ummadda iyo adiga iyo lafahaagaba anfaca ummaddana ku anfaca mustaqbalka waxa weeye waa jiilka soo socdaa mustaqbalku waxa weeye wuxuu ku jiraa ilmaha iyo dhalinyarada laakiin haddii gaab weyn loo dhigo oo micnaha in weyn oo toga ay dhibaato ay ku noqoto inay ayagu gaaraan kuwii ka horreeya aabbayaashu waa inay dadaalaan oo ilmaha ay xiriiriyaan qof kastoo naga mid ah ayayna arrintaasi saaran tahay aad ba mahadsan tahay injineer faatixo bal khadadka telefoonka ayaynu dib ugu laaban doonaa khadka xige ee telefoonka halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum walaal magacaaga meesha kasoo dayso walaal magacayga waxaa la yidhaahdaa cawralaa la yidhaahdaa cawralo kusoo dhawow barnaamijka arrimaha bulshada maanta kaga hadlayno nabadda adigoo soo koobaya hadalkaaga fikradaada walaalo waxa weeye waa salaamantihiin halkii inankii hore nabadda ayaa fiican in loo dabaaldego oo nabadda la raadiyaa fiican laakiin mid yar baan sheegaya boocaane adigoo had iyo jeer s s c markay hadlayso maxaad u weydiin weydood oo odhan weyday dagaalkanaa ruuxaysaan joojiyi oo had iyo jeer nabadda ka qayb gala waayo kollay qoladaasaad ka tirsantao mar walba waa laguu diraa marka ma arag adigoo mar qura weydiinayo sida weriyaasha ole war maxaa nabadda ku diidaysaa inta dagaalkan iyo balaayadana ruuxaysaane dadka ula haddi weydina waxa wacanaad doonaysaan ugu sheegi weydi waa salaamantii aad ba mahadsan tahay cawrala eegna haddaba khadka xige ee telefoonka halo asalaamu calaykum calaykum salaam walaal kusoo dhawow barnaamijka arrimaha bulshada ayaynu ku jirnaa maanta waxaan ka hadlaynaa nabadda marka adigoo soo koobaya fikradaada magacaaga marka hore halo walaal marka hore magacaaga meesha kasoo ha al-shabaab aad baan ugu xunnahay khadkaasi waa goay waxaan ka codsanaynaa dadweynahana soo wacaya in maaragtay fikrad wanaagsan ee ku saabsan nabadda inay maaragtay nagu soo wacaan haddaba waxaan idin daari doonaa gabay maaragtay ku saabsan nabadda oo isbarbardhiga nabaddu sida ay tahay gabayga nabad iyo colaad oo isbarbardhiga nabaddu sida ay tahay iyo colaaddu siday tahay nabad iyo colaad wuxuu soo baxay 10kii bishii 9aad 2006 runta gabay caddaynaya baan soo callaqayaaye ibra qaadashee waxaan ka waday maanka culidiiye cadowgii nadiifkan lahaa caam u kala saare cadaab iyo jannay kala yihiin labadan caynoode bal dhegaysta codkan labada dhinac laysoo cirib saaray nabad baa cancayno iyo khayr caafimaad talisa colaadduna shartay caawisaa cudurka hooygiisa carradoo barwaaqa dadkoo farax ku ciidaaya calcalyada xareedoo dhulkay badi u ceegaagta isu ciirsi calooshoo fiyow nabad cudoon baa leh abaar culus dhulkaan calaf lahayn ciirada iyo boorka wax ka caymi xoolaha cidgeli cadowgiiyo qaadan alwasaad catow iyo habaar gulif colaad baa leh aroos sacabka lagu caawiyey xidid is-eesaaye lamaanaha caruusyada ishelay caashiq iyo foomka
orod dhalashadii lagu farxana nabad cudoon baa leh caawo go-aya ciiddii ku raga dhaawacana caynsha gurmad cidaha laga keeno iyo ciidan xoog badan leh qayla dhaan argaagtan iyo hiif gulif colaad baa leh ordan iyo caleema isqabsaday kayma caws badan leh coodkoo dhalaayay nimciya ciirta iyo dhayda caanihiiyo subaga carfoo nabad cudoon baa leh cararka iyo fiiga reeraha qaarba cirif aado casabada la laynaayo iyo ehelka cayrtoobay hantidaadii odan calal ka wadan gulif colaad baa leh warshadaha camiran horumar cadcaada sare gaadho kala cayn sawaariiq cartamayso calaqidooda cudud xoog leh caqligoo fiyow nabad cudoon baa leh burbur ciidda lala sima guryihii quruxda ciiraayey cabdi iyo ismaan soo dilo cidaha soo laaya qabiil la isku cayrsado xumaan gulif colaad baa leh casarkii nin toosoo ka kacay caawa gogashiisii oon cilaaq dhibaataiyo dagaal go-an calooshiisu aynaansan jiifkuul cuntami nabad cudoon baa leh cilcilowga guuraha baqada cararka fiigtaanka maadashada inaan idinku arag lala caraabayo reerkaagii odan caawa hooyan gulif colaad baa leh cambaha iyo digirtiiyo qaraha canabka laacaya canuuni iyo saytuun babay jaadadka lacayna khudaar lala cajabiyey wanaag nabad cudoon baa leh uusmiir calooleed haraad dhuunta ceejinaya caato laguu hogeeyey rafaad gaajo kugu ciirta cunto aan dhadhamin iyo wareer gulif colaad baa leh carwo buuxda bakhaarada camiran bacadla cayn cayna gaadiid carraabo iyo subax calan walaynaya cood kuu kordhaaya iyo ribix nabad cudoon baa leh coosus maran magaalada cidla oon iskula joogin cariish dumay madaafiicda culus ciidda kala jeexday awgiirta nafley laga dhigiyo cood la baylihiyo cayr fara madow iyo waxlihii gulif colaad baa leh xafiis shaqada ciribtaare iyo maamul caawinaya calaamada saxiixyada ku dhigan caanka tiimbaraha hawsha caadi loo kala wadana nabad cudoon baa leh kaare jaadad kala cayna iyo jiib afliya beebe dhashiikaha hartamiyo shilkaha soo callaqan meesha suuga oo cirka iyo dhulkaba lagu ciyaarsiiyo aadanaha wax ciribtira iyo qori gulif colaad baa leh habbanaan dhexdood eegsatiya caashiq iyo heesta caraabada jalbeebsiga fadhiga sheeha casiriyiinta sheeko laysu celiyo kaftana nabad cudoon baa leh 10 caana maaltuutahoo ciro kugu yeesha korkaaga afoofila noqdaan caagad lagu daadin calool maran camboolkii timaha gulif colaad baa leh casrad gabarah guri carafle iyo daahyo kala cayna jiifka casriga ee fadhiga lagu caweynayo carruur ku ciyaarta iyo farxa nabad cudoon baa leh casaydii caddeed dumar sida oo ciil la hoganayo qabuuraha la ciid bixiyey iyo meydka cigan meesha gorgor cunaya caloolaha barbaar gulif colaad baa leh daawashada garoomada camiran lagu ciyaarayo kubad cayrsi goor celihii iyo ciidan dhalinaya anaa caawa kaa badinaya iyo cad iyo gulguulid kaftan aan cilaaq lagu ogeyn nabad cudoon baa leh ciyaalkii banooniga oo qoryaha culus ku heensaysan laadkii cagtoo loo bedelay shiishka ugu ciiri curyaannimo iyo caafimaad la-aan gulif colaad baa leh tartan cararka lagu loolamayo beratan ciideedka legdin lays camaajiiro iyo bootin iyo ayro bilad caana shahaadiya cisay nabad cudoon baa leh booraysi ciide biyaha aan carriga oolin kala carar culumaa udiin cawda loo jarayo cuqbo iyo naxariis la-aan gulif colaad baa leh masjidada cibaadada rabbiga loo calaamadiyey sameecada cishaha iyo sabxiga camalka khayr haysa ilaahay cabsidii ruux wardiya nabad cudoon baa leh calooliyow baror iyo catow casin iyo oohin curad gegan cibaaro iyo halis cidaha hoogooda wax caqligu ka guulaama iyo gulif colaad baa leh wax kastoo wanaaggii cabira ama u ciidmaya cindiga iyo maankuna rabaan caynka loo fuliyey carfi nuura cilaaqaad macaa nabad cudoon baa leh wax kastoo xumaan caawiyo bala cafoofaya eriq iyo hurgumo doogle oo aana soo celiya cudur aan buskoon horumar li'i gulif colaad baa leh waxba yaan murtida ila cirbina caynka waan xiriye way kala cadoo labada tani kala iraab roone cabitaan sun iyo waa magow malab aan tuugiye caqli waxaan lahayn baan ogeyn caamaladeediiye aan cisayno nabad duul calfaday libin carruus gabayga nabad iyo colaad oo isbarbardhig ah nabaddu sida ay tahay iyo waayahay daawadayaal waxaan filayaa dhammaantiinba in aad ka bogoteen gabaygaas uu inoo soo tirinayay abwaan xasan bulxan runtii aada buu u mahadsan yahay wuxuu ahaa gabay runtii aada u qiimo badan oo ka hadlaya nabadda iyo colaadda waxay tahay haddaba gabagabadii barnaamijka ayaynu maraynaa daawadayaal barnaamijkan oo noqon doona barnaamij toddobaadla ah oo maalin kasta ka baxa telefishinka caalamiga ee Somali Channel toddobaadkana uu marti noogu ahaa cabdilaahi cabdiqaadir cali faatixo cabdiqaadir aad ba u mahadsan tahay runtii aad ayaan ku mahadcelinayaa University Somali Channel wax kale oo aan ku daray ma jiro ilaahay waxa waaye ummadii fahanta nabadda ka dhigo nabaddu ayadaa nolol ah ayadaana ayatiinka ay ku bilaabanaysaa haddaan nabad meel ka jirin horumar ma jiro development lagama hadli karo dowladnimo lagama hadli karo wax kale lagama hadli karo waxa uun aasaaska noloshu meesha ugu hooseysa waa xataa cunto ma cuni kartid haddaadan nabad haysan marka aan nabad dhahno colaadda dadka ha la fahansiiyo in laga leexdo oo dhaqanka la bedelo dhaqanka la isku wareysto dhibka waa in dhaqan wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan iyo qalbi wanaagsan la isku wareysta ilaahayna ummadii sanadkii sanad khayr badan nooga dhigo barnaamijyada wadaana ilaahay barnaamijyo ummadda anfacaha ka dhigo Somali Channel aad ayaan idinku mahadinaynaa boocama si gaar ayaadna kuugu mahadinaya aad ba mahadsan tahay
daawadeen intaas ayaynu kusoo gabagabeyneynaa toddobaadkan barnaamijkeennii arrimaha bulshada. waxaan idinku wargelin doonaa barnaamijkan wuxuu bixi doonaa maalinta isniinta isniintan ma isniin soo socota ayaan kusoo noqon doonaa si live ah. aad ba u mahadsantihiin. waxaan u mahadcelinayaa dadkii kasoo qayb qaatay iyaga oo telefoonada noo soo diray oo ra'yigooda noo soo gudbiyey. intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkan toddobaadkan. waxaan idinkuga tegaynaa anigoo injineer faatixuba, dhanka farsamada waa maxamed kulkiid. intaasaan kusoo gabagabeyneynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.